habeen wanaagsan dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada warka habeenimo ee raadiyaha wadaag qodobada aad dhageysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo war ka soo saaray geerida majaajiilista Sooraan shirka madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada oo wajigiisii shanaad soo gabagabeeyay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ka tacsiyay geerida ku timid abwaan ibraahim ismaaciil sugule midowga Yurub oo taageero u ballan qaaday maamulka galmudug madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen oo kulan la qaatay wasiirada haweenka iyo xaqul insaanka wasaaradda waxbarashada dawladda goboleedka Koonfur Galbeed oo eedeen u jeedisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya akhbaaradka dibadda xisbiga haysta talada UK oo lagu eedeeyay islaam nacayb wadajirku waa wada noolaashuhu waa inaan la kala maarmin waa inay wax naga wada dhaxeeyaan wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga wadaag FM wadaag FM waa 26 bisha shanaad sanadka 2021 habeenimo arbacaha khamiisna ay soo galayso kusoo dhawaada warka raadiyaha wadaag oo dhameystiran shirka madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa wajigiisii shanaad la soo gabagabeeyay maxamed ibraahim axmed dalnuurshe ayaa warkan ku eegaya wararka naga soo gaaraya teenada afasyooni ee magaalada tan muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo gabagabeeyay wajigii shanaad ee shirkii u dhaxeeyay madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir shirka wararka hoose aan ka helayna ayaa waxay sheegayaan in qodobadii la isku fahmi waayay ee isku fahmeen maamul goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir maamul goboleedyada ayaa waxay diyaarsheen in ay isku keenaan madaxda ka soo jeedo deegaanada maamulka Soomaaliland iyadoo ku guuleystay inay heshiisiyaan gudoomiyaha Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyadoona ku heshiiyay qoondadii ay ku lahaayeen doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan dalka Soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada Galmudug Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Hirshabeelle iyo Jubbaland iyo Puntland iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa dhammaantood waxay amaaneen labadaasi mas'uul oo ka soo jeedo deegaanada maamulka Somaliland waxayna sheegeen in maalinta birita la soo saari doono qodobadii ka soo baxay shirka iyo waxyaabihii ay ku wada heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya iyo gobolka Banaadir waxaana xusid mudan in xaflad weyn loo dhigi doono si loogu soo bandhigo habka ay u dhacayso doorashada la filayo inay ka dhacdo dalka Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa war ka soo saaray geerida majaajiilista Sooraan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka tacsiyay geerida ku timid Allah una xariistay abwaan Sooraan Ismaaciil Sugule oo cudurka COVID-19 ugu geeriyooday magaalada Burco madaxweynaha waxa uu sheegay in marxuum Sooraan Ismaaciil uu ka mid ahaa hal abuurada sida weyn uga qayb qaatay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed fankiisa iyo sheekooyinkiisana ay ahaayeen kuwo fariin xambaarsan waxaan tacsitiiraan leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday Allah una xariistay abwaan Ibraahim Ismaaciil Sugule Sooraan oo ku geeriyooday magaalada Burco abwaanka Allah u naxariistay wuxuu ka mid ahaa hal doorka bulshada Soomaaliyeed ee dadaalka ku bixiyay wacyigelinta bulshada iyo kobcinta garaadka da'da yar ee Soomaaliyeed isagoo waqtigiisa iyo hibadiisa faneed u huray sidii uu dalkeena ugu wacyigelin lahaa dhibaatooyinka qabyaalada musuqmaasuqa colaadaha sukeeyo adeegsiga maandooriyaha iyo xaalufinta deegaanka alla waxaan weydiinayaa marxuumka inuu hoygiisa ka yeelo Jannatul Firdaws samri imaan uu ka siiyo qoyskii bahda fanka iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri madaxweyne Farmaajo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyay geerida abwaan Ibraahim Ismaaciil Sugule Sooraan Maxamed Cismaan Nuur Goldan ayaa warkan ku eegaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa ka tacsiyadeeyay geeridii ku timid Allah u naxariistay abwaan Sooraan Ismaaciil Sugule oo cudurka COVID-19 ugu geeriyooday magaalada Burco ra'iisul wasaare Rooble ayaa waxa uu sheegay in marxuum Sooraan Ismaaciil uu ka mid ahaa hal abuurada sida weyn uga qayb qaatay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed
fankiisa iyo sheekooyinkiisuna ay ahaayeen kuwa fariimo xambaarsan. Roble ayaa tacsi u diray ehelka iyo qaraabadii uu ka baxay. Allah u naxariistay abwaan Sooraan Ismaaciil Sugulle, wuxuuna alla uga baryay inuu jannadii Firdawsi ka waraabiyo, samir iyo iimaanna ka siiyo bulshada Soomaaliyeed. Sooraan waxa uu ka mid ahaa hal abuurada sida weyn uga qayb qaatay wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed. Fankiisa iyo sheekooyinkiisuna ay ahaayeen kuwa fariimo xambaarsan oo gudbinayay jannadii Firdawsi Allah ka waraabiyo, ehelkii qaraabadii uu ka baxayna samir iyo iimaan Allah ka siiyo, ayuu yiri Ra'iisul Wasaare Roble. Abwaan Sooraan ayaa wuxuu caan ku ahaa sheekooyin inta badan ay isla soo jili jireen abwaan Jawaan oo ay saaxiibo ahaayeen, waxaana la xaqiijiyay inuu u geeriyooday cudurka halista ee COVID-19 oo maalmihii la soo dhaafay la xanuunsanayay, waxaana sidoo kale ka tacsiyadeeyay geerida abwaanka mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Somaliland. madaxweynaha Galmudug ayaa waxa uu la kulmay danjiraha Midowga Yurub ee Soomaaliya. madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay danjiraha Midowga Yurub u fadhiya Soomaaliya danjira Nicholas Bartlin. madaxweynaha iyo danjiraha ayaa iska xog wareystay qorshaha horumarineed ee Galmudug iyo sidii Midowga Yurub u sii balaarin lahaayeen mashaariicda ay ka wadaan Galmudug. madaxweynaha ayaa ka mahad celiyay taageerada joogtada ah ee Midowga Yurub ay la garab taagan yihiin Soomaaliya. danjiraha ayaa ugu dambeyn ballan qaaday in ay taageeri doonaan hay-adaha dowladda Galmudug, isaga oo dhinaca kale sheegay in ay soo dhaweynayaan isla markaana ay fulin doonaan mashaariic dib u dhis ah oo lagu sameynayo kaabayaasha dhaqaale ee Galmudug. wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxay eedeyn u jeedisay wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Maxamed Ibraahim Axmed Dalnuurshe ayaa warkan ku eegaya. wasiirka waxbarashada ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxa uu eedeyn u jeediyay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed ayaa wasaaradda waxbarashada ku eedeeyay inay kala tashan imtixaanka shahaadiga ee ka dhacaya dalka Soomaaliya maamulka Koonfur Galbeed, waxayna sidoo kale ay sheegtay wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed in dugsiyada ku yaala deegaanada ceelasha biyaha loo diiday in ay galaan imtixaanka shahaadiga. waa sidoo hadalka u dhigay. wasiirka wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa uu sheegay in ay ka fiirsan doonaan maamulka Koonfur Galbeed in ay la sii shaqeyn doonaan wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya. dhanka kale eedeymaha loo jeediyay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya ku aadan in aysan kala tashan wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed ilaa imika wax wara kama soo saarin wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa kulan wuxuu la qaatay wasiirada haweenka iyo xuquuqul insaanka. Maxamed Cismaan Nuur Goldan ayaa warkan ku eegaya. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee magaalada caasimadda ee Muqdisho u jooga ka qaybgalka shirka arrimaha doorashooyinka ee ka socda xerada Afisyooni ayaa kulamo kala duwan waxay ka wadaan magaalada Muqdisho. madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa maanta qaabilay wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, haweenka xildhibaanada ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo haweenka bulshada rayidka ku jira. kulanka ayaa looga hadlay ilaalinta qoondada haweenka Soomaaliyeed ee doorashooyinka iyo sidii loo tixgelin lahaa cabashadooda. dhinaca kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa kulan la qaatay hormuudka haweenka Soomaaliyeed ee ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda iyo ururada u dhaqdhaqaaqa ka qaybgalka haweenka ee arrimaha siyaasadda. madaxweynaha ayaa u ballan qaaday haweenka Soomaaliyeed in uu halgami doono sidii ay xaq ay u leeyihiin uga heli lahaayeen heerarka kala duwan, isla markaana uu ka shaqeynayay sidii doorashooyinka dhawaan dhacaya ay uga heli lahaayeen qoondo ku filan. maalinta biri oo Khamiisa ayaa waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyo shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee ka socda magaalada Muqdisho, kaasoo laga soo saari doono warmurtiyad rasmi ah oo ay ku heshiiyeen madaxdii ka qaybgalaysay shirkii ka socday magaalada Muqdisho. halka aad warkaasi kala socoteen waa raadiyaha wadaag. markaana akhbaaraadka dibadda. baaritaan madax bannaan oo in muddo ah ay wadeen kooxaha ka shaqeeya xuquuqda aadanaha dalka Britain ayaa daraasaad ay soo saareen ku sheegeen in xisbiga haya talada Britain ay dhexdiisa ka jirto islaam nacayb. Professor Swan Singh oo ahaa gudoomiyihii hore ee sinaanta iyo xuquuqul insaanka ayaa baaritaanka ku sameeyay hal
4,018 cabasho oo la xiriiray 727 dhacdo oo kala duwan waxaan dhacdooyinkaasi laga soo gudbiyay xisbigaasi sanadihii u dhaxeeyay 2015 ilaa 2020 guud ahaan warka aad kala socoteen raadiyaha wadaag waa nageenta